الشبع عداو اسكوتي سلامة كت الشبع عداو اسكوتي سلامة. السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا برنامج كيني كساب سنة شخصيات كسومالي دا هو عنسن فضلا هذا الشانل كوكو عصوبتا سبسكرايب سار فيديو هذا تكاشنا لايك سار. شخصيga ugu horeeya maanta barnaamijkeena wuxuu noqonayaa Axmed Xasan Cawke. Cawke wuxuu ku dhashay magaalada Wajaale 1943 waa rugcadaha saxafi ah inta badan noloshiisa ku soo qaatay mihnada saxaafadda. wuxuuna ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho, BBC, VOA, Home Cable TV iyo Universal TV. wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed kadibna wuxuu noqday afhayeenkii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ilaa burburkii Soomaaliya sanadii 1991. Axmed Xasan Cawke waa nin inta badan lagu tiriyo wariyeyaasha ku fiican dhanka majaajilada weecsan, waayo waa nin aad iyo aad ugu hadla afka Soomaaliga adeegsadana oraah inta badan la jeclaysto. Allah u naxariistay wariyuhu wuxuu geeriyooday taariikhda markay ahayd 17 November sanadii 2015. wariyaha wuxuu aad loogu xasuustaa dagaalkii dheeraa uu u galay dib u soo celinta qaranimada Soomaaliyeed asagoo adeegsanaya xirfadiisa waryanimo. wariyaha wuxuu aad caan ugu ahaa bashaashnimo iyo fidinta wararka midnimada keena. Allah u naxariistay wariyaha wuxuu sidoo kale baal dahab ah ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed. shaqsiga labaad aynu barnaamijkeena ku soo qaadanayno maanta waa Axmed Faarax Cali oo ku magac dheer Idaaja. waa suugaanyahan Soomaaliyeed oo aad ugu xeel dheer dhaqanka iyo taariikhda suugaanta Soomaalida. Idaaja waxa uu kaloo ka faalooda suugaanta noocyadeeda kala duwan iyo caadooyinkii hore ee sooyaalka ahaa. waxay dad badan oo Soomaaliyeed ku xasuustaan barnaamijyadii faraha badnaa uu ka soo jeedin jiray Radio Muqdisho barigii dowladii Soomaaliyeed ay jirtay oo Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa. Idaaja waxyaabaha kale uu qabto waxaa ka mid ah inuu gabay tiro midna soo bandhigo isagoo ururin tifaftir iyo waxyaabo kale ku biiriya gabayadii taariikhiga ahaa. aqaltii la'aantii keligii matagay haddaynan istaakulin tabaryeelanmayne. barnaamijkeena maanta halkaas ayuu noogu egyahay. waa inuu barnaamijkeena xiga iyo jimcaha dambe hadduu Allah awoodda la ka raali noqdo. waa anigoo Shaafi Joora oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. كت الشبع عداو اسكوتي سلامة